gobolka ugu xasaaraha badan dunida ee bariga dhexe way ku yaalaan inta badan dalalka islaamka ee ugu awoodda badan ayaa cagaha la sii gelaya deganaanshalaan cabsi laga qabo inay si ba'an saameyn ugu yeelan doonto guud ahaan amniga dunida toddobadii bishii Oktoobar dagaal u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil ayaa qarxay waxaana uu galaaftay nolosha in ka badan 10,000 oo ruux inta la diiwaan geliyay ilaa hadda tirada ugu badan ee aan waxba galabsan ee shacabka Falastiin ayaa guryahooda duqeeyeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil duqeymuhu waa joogto jidadka gargaarkuna waa xiran yihiin cabsida in colaadu ay faaftana waa ay sii kordhaysaa dagaalku waxa uu ku fiday wadamada gobolka Ciraaq oo laga diiwaan geliyay weerar lagu qaaday saliyada ciidamada Mareykanka ee dalka ku yaala Suuriya oo Israa'iil goobo kala duwan ay ka weerartay Lubnaan oo ay Xisbullah la dagaalamayso dhinaca Israa'iil dhanka xadka Masar taangiyada doonaya inay galaan Gaza ee ay leedahay Israa'iil ayaa madfac ku dhuftay askar Masaariya inkastoo ay Tel Aviv ku sheegtay inay tahay xabadaasi mid fakatay haddana arrintan lama dhayalsan karo madaxda dunida islaamka ayaa siyaabo kala duwan qadiyadan u maareynaysa Imaaraadka Carabta ayaa aaday dhabaha inay taageerto Israa'iil diyaaradihii ugu horeeyay oo wada shixnad military oo gargaar u ah maamulka Israa'iil ayaa ka degay Tel Aviv iyo saldhigyo military oo ku yaala deegaanadaas ujeedada ugu weyn waxa ay tahay inay Israa'iil guul military ka gaarto Falastiiniyiinta soona afjarto hawlgalka kooxaha wax iska caabintu ay ku doonayaan inay kula dagaalamaan oo ku xoreystaan dhulkooda talaabada military ee ay Imaaraadku ku caawinayaan Israa'iil waxa ka sii horeeyay in kooxaha iska caabinta ee reer Falastiin ay u aqoonsatay Abu Dhabi inay yihiin kooxo argagixiso oo ay tahay in la dagaalamo dhaqaalahoodana la fariisiyo saacadihii la soo dhaafay Mareykanku waxa uu kordhiyay joogitaankiisa military ee gobolka nidaamka difaaca hawada ee THAAD oo Mareykanku leeyahay ayaa loo daadgureeyay Sacuudiga iyo Israa'iil si ay uga hortagaan weerarada gantaalada ee lagu qaadayo saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala gobolka bariga dhexe aqalka sanadka ee Mareykanku waxa uu isna ansixiyay qaraar kale oo cusub kaas oo hiilo u ah Israa'iil waxaana la go'aansaday in qof kasta oo ka soo horjeeda aragtida Israa'iil lagu xukumi doono hal sano oo xariga iyo ganax lacageed oo dhan 45,000 oo lacagta yuurooga qof kasta oo huriya nacayb ama rabshado ka dhanay Israa'iilna waxa lagu xukumi doonaa 5 sano oo xariga iyo ganax lacageed oo dhan 100,000 oo dollar waana mid muujinaysa sida dunidu ay gabi ahaanba laba daraf oo kala adag u istaagtay ma ogtahay faras taxi in asbuuc walba ka samayn kartid lacag 2,000 taaban iyo offer haddii aad qaadato 10 trip waxaad helaysaa 500 oo faras maylisa haddii aad qaadato 15 trip waxaad helaysaa 1,000 faras maylisa ama haddii aad qaadato 30 trip waxaad helaysaa 2,000 oo faras maylisa haddaba la soo deg abka faras geeska Afrika iyo Soomaalida arrinta saameynta ku yeelanaysa waa in ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre markii ugu horeysay qaatay go'aan adag oo lagu dhiiranayo in la garab istaago Falastiin waxa uu sheegay in kuwa ku soo duulay ay jabi doonaan Israa'iil ay xoroobi doonto dawladdiisuna ay garab taagan tahay iyo shacbiga Soomaaliyeedba walaalahooda Falastiiniyiinta waxaana uu tilmaamay in soo duulitaanka Israa'iil uu jab ku dambayn doono hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo la aaminsan yahay inuu gabi ahaanba ka marnaan nooc kasta oo diblomaasiyada waa si weyn u soo dhaweeya shacbiga Soomaalida oo ku sifeeyay inay tahay ku dhac siyaasadeed oo la yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya laakiin dhinaca kale isla gudaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya waxa la aaminsan in arrinta ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin madaxda sare wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlayay bilo ka hor fadhiga golaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegay in Falastiin ay xaq u leedahay inay hesho dawlad madax bannaan laakiin warkaasi wasaaraha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ayaa la xaqiijiyay inuu dhibsaday kadib markii ay dawladda Imaaraadka Carabta si baan uga carootay talaabada ra'iisul wasaaruhu ugu dooday Falastiin warka ra'iisul wasaaraha ee cusub waxa kale oo ku daray in kursigiisa haddii uu waayo uu garab taagan yahay qadiyadda Falastiin Hamas iyo kooxaha kale ee iska caabinta Falastiiniyiintuna ay yihiin kooxo wadankooda inay xoreystaan doonaya ee aysan argagixiso ahayn inkasta oo dadka faaleynaya khudbadda ra'iisul wasaaraha qaybtood ay ka eegayaan dhinaca diblomaasiyadda iyo in dawladda Soomaaliya ay dhaqaalaha ugu badan ka hesho reer galbeedka oo la safan dhinaca Israa'iil haddana tan xaqada ah ee waaqaca taala waa in dadka Soomaalidu ay si buuxda u garab taagan yihiin dadka Falastiiniyiinta madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isna dhankiisa qaatay tallaabo la mid ah mid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana uu sheegay inay guuleysan doonaan shacabka Falastiin oo ay garab joogaan haddii aysan dagaalyahano ku taageeri karinna ay dhaqaale ku taageeri doonto Djibouti shacabka Falastiin warka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo dhawaaqa ka soo yeeray madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle inkasta oo siyaabo kala duwan loo kala fasiray dhinaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo warkiisu ka caddaa kan Ismaaciil Cumar Geelle
haddana saameyn culus inay ku yeelanayso gobolka geeska Afrika xiisadan haddii ay sii korodto ayaa la aaminsan yahay. Yemen kooxaha Xuutiyiinta ee ku sugan ayaa isticmaalaya gantaalo laga tuuro iyagoo loo jeedinayo dhinaca Israa'iil. Mareykanka ayaana sheegay inuu ku guuleystay in la fashiliyo 2 howlgal inkastoo ay warar badan ku gadaaman yihiin sida arrintaas ay ku dhici karto. haddana Yemen madaafiic laga tuuray in Israa'iil la sheegay inay gaari karaan masaafo ka badan 4,000 oo mayl. hadda waxaa la aaminsan yahay in saameyn kale arrinta ay muujinayso waa in saldhigyada militari ee gobolka ku yaala ee dowladaha galbeedka arrintan ay saameyn fudud ku yeelan doonto. haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zad, Sahal iyo M-Pesa. ballanteenu waa PC.